حكرك أنصار التوحيد وحصل يعني كورم أقون كسبرته سيدي أمرك أو لحقلي موطولي شبابك عويل آذن جامع كل شيء قبل كسول كنا برباري شبيلها هوسي مقدش أيو فكر كشباب نما كغا قاتay saaxiibkiis oo u bandhigay la shaqaynta kooxda muddo dhowr sano laga joogo basaaskan ma aamini jirin xitaa kuwa la shaqeeya oo shaqaalaantiisa waa sahmiyo weyn howlgali jirana waqti kasta oo adeegiisa loo baahdo xaafadaha suuqa beerta waa beri xamar bile isgooska Siinay iyo goobo kale ayuu xog ka bixinta dhaqaaqida ka jira uga soo kaliya jiray Carafaad oo degmada Yaaqshiid ah okay wuxuu markaa dukaan ka shaqeysaa firaaqadaada ka waran iyo firaaqadeeda ma badnaa yaray okay marka wuxuu wax kale ka marabo adoo meesha ka shaqeynaysaa kaliya waxaan ka rabaa wixii aan ku dirsado marka firaaqada leedahay aan ku dirsado inaan macnaha aad isoo sheegtid okay wayaan dhahay هو كان وحي أبناين مركا يعني ودada ma furan tahay mootada ma la baara ciidan ma jooga yaa taasi u badneeday shaqada u badan taasi ahayd 3 4 5 6 kale xad markaa tagtid meeshaas wixii ka jira qiimay okay ila garaashka eridaas أنا ناقي ما يبيع كجرا وما نكتي رقاق إحنا نسعسي إيش أنتقي إحنا وضع مركان قوي إيش أنجوان هاي أوكي حالي المركان إيش غيري عيد ما جوجا سوى حال كذا هم جوان عاد وعاري أوكي سوري هذا مركان أوان سوري ماشي عادي وعاري إيش هذا جوان لنا مركان صاصيد كذب هذه عبارة كذي مركا واحد ضايع مركا أنا دكتي إذا كل واحد عبد عمره معناها لكن من الفقه مقلي المركز موطن صارنا وحير كذب صباحي فارح رأيي وفصحان طاير لي وشغل ولا معطين ذكرتها نعم مدين توسكي وصباحنا مركا مي لحي لباتين كذي سنة كان معلمة جمعها عويل maadaama maktabka istikhbaaraadka uu ka ahaa shaqayaqaan firfircoon aadna lagu kalsoon yahay ayaa loo xilsaaray inuu Muqdisho ka soo gudbiyo xogta gurmadka ka soo bixi kara ee ku wajahan Buulamareer oo weerar ka socday saas waxa ka dibaalay soo migriya faaraxay soo waay ana waxa u dhaaniyo aan ka rabnaa ina maaragtay aad wixii dhaqaaqa oo hakan magaalada dhinacan uga soo baxa ayaan isu sheegtay gaar baa weyn faantay oo ii sheegay xitaa dagaal Buulamareer ka socday ugu dhahay intaas uu raaciyay Buulamareer dagaal ka socda marka asaas ugu waxa wixii xaga u soo gudbay ciidana ama xirbanaadan iyo soo sheeg u dhahay muddo yar kooban kadibna wuxuu dhahay waa bixi kartaa fasaxanta markan waa tuma xaawi Cismaan Cabdi bal iyada hayskeen barto waxaan ku dhashay xamar gaar ahaan degmada Hodan waxaan ku koray xamar ku barbaaray kadib ani waxbarashadeeda ilaa iyo fasalka 8aad oo maadiga wax ku gaaray iskuulka Shaan wala Primus ka dhig kadib waa laga bixiyay waalidkayga bixiyeen kadib hooyada adiga 2018 meelahaas hooyada magaalada ka gurtay jahri u gurtay bas hooyada markii meesha u gurtay aan waa ka haray guriga walaalkay ayaa ku haray bas waa ka daba tagay maalmo la soo joogay waa ka soo laabtay Sacuudiga oo tahriiba Sacuudiga lagu kutan saalka meelahaas inaa filan dhamaadkii Sacuudiga marka aad muddo soo joogay adiga shaqaysanaysa caadiga oo looga shaqeeyo Sacuudiga kadib soo laabtay oo la soo qabtay 2021 laga soo qabtay Sacuudiga kadib saas xamar ka imaaday la jaanqaadkeeda jidiye jahadiidka bilowgiisa ayaa ahaa keelitaanka riwaayadaha jilitaanka leh ee qawaariista baraha bulshada ku faafiso taasi oo sababtay inay xiriir la yeelato oo ay ku biirto jidbeesanayaal kale
oo yuusaro ku leh guruubyo Telegram iyo WhatsApp. ka Soomaali imaada kadib qadka arkay ma ahayto barnaamijka ku dhex jiray taageero iyo ansaar iyo barnaamijyada soo dhigi jiray Furqaan soo dhigi jirtay iyo Andalus qadka arkay sida Facebook iyo Telegram ka tirsan jiray marka dambe sidii ugu milmay marka dambe wiila ka bartay ma ahayto sida isku faanay qolada sheegay bas markaas wuxuu dhahay ee qaraabanahay gabar ku baraa sidoo gabadhi ugu baray gabadhna sidii messenger ku sheekaysan jirnay gabar lambarkiisa soo siisay ayaan dhahan Saadiya lambarkiisa soo siisay gabadhi marka ay soo bandhigtay ki qof ku baraa dhahda guursadii waxaas ka wiil oo gabar raba jiray wiil ku baraa dhahda marka aan ka diiday ma dhahay barin هذا مركب ويل العربي مركب شقي واحد إيه كوسا بندقة ويلا لمركب صوصينا هذا مركب صابر لهم. waxa ay haween ka ahayd oo nugta qaybta amniyaadka ka shaqeysa waxana ay qaybisneed haynta hubka sida bambooyinka iyo bistooladaha mararka qaarna xeeladaheeda gaarka ayay kaga akhbaar keeni jirtay xubnaha ka tirsan dawladda. wiilasha la shaqeynay ani qof ay ugu soo xiray ninka amirka ay ugu soo xiray oo joogay meesha maarag meel la dhaho markaas soo wacay marka soo wacay alaabta algu kana hay marka dambe wuxuu ii keenay bambooyinkaas ii keenay qof wiil ugu soo dhiibay wiilka ka qaataan gurigaaga sidii ugu hay marka alaab marka ay keensado bambooyinkaas ama u hay guriga u geynay iyo maxay keenay baasho oo biskol dabashida weekina wala gali midwan oo xogo iyo mid yar weekina oo hayaan sida kuma caamileena qoldan way soo direen ka xidhan ka oo iga baahdan wuxuu dhaas diyaari soo qaad meel blaakin oo dhaa saad beelaha iyo kini jirta beelaad kana كنجري يو هالمرة مدينة كانوا إلى أوجي لكن أنت تبيلك كل قاعدين جرني في هالمرة هايتو تبيلك كحير لدافو من الله ده هاي بعد ويره هذا بيجي بس تي أنت كل إسكوس سويستك يو يجري يسوق إيمو كان ركاو تأشيء ركاو كأشيء كدي يبدأ قفاكو إيمانا صدق في إيمانا يقعدنا. حسن علي حسن ku dhashay caasimadda Muqdisho 50 jirkan waa qurbo joog jidad badan ku laan karay balse doortay inuu macaash u raadsado shabaab lana shaqaysto mar waxa uu ahaa nabadoon marna waa dalaal markiisa saddexaadna waa qaadaha dadka u dacwo taga argagixisada qofkuna hadduu meesha tago dabcan dadka ina dadka maarata hunguriga kaaga jiro inaad qaadaan rabtaa ma ogtahay qofka telefoon waa kala qaaday Simberg waa sarta hebel waxa lagu yiraahdo wax waa la isleeyahay bishii lixaad aakhirkeedii akoonkeyga waa la fiiri karaa 900,940 iyo 9,960 ma gaani aan baawar ka bixiyay anoo waaga baawarka la wareegin ana ku shaqo tagay bishii sagaal intaysan dhamaan waxaa dhacday madaxweynaha inuu go'aan soo saaray oo yiri lama aadi karo nimankaas lama aadi karo aniga maalinkaas wixii ka dambeeyay ma aadi meeshaas uma kicin taksiilahaasaan ahay dhageysi iyo garnaqsi dheer kadib maanta ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku kala xukuntay eedeysanayaashan 1 Cawil Aadan Jaamac 10 sano xabsi ciidan ah Xaawe Cismaan Cabdi 8 sano xabsi ciidan ah Xasan Cali Xasan 1 sano oo ilku haynta booliiska 4 Maxamuud Cabdi Xuseen waxa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u cadaatay inuusan wax dambi ah lahayn sidaas ayna xoriyadiisa ku siisay Maxamuud Cabdi Xuseen sidoo warbaahinta u sheegay gaashaale Salax Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida